الله وبركاته. halkan nagala socotaan warbaahinta City Studio dhexe magaalada Jowhar. kuna soo dhawaada barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida. intuu socdo barnaamijka caawa waxa idin socodsiin doona waa anigoo ah Saare Cabdixuseen Sahar Wadani. qodobada aad ku daawan doontaana waxa ka mid noqon doona noocyo kala duwan oo dalagyo ah oo lagu soo bandhigay magaalada Beledweyne. madaxweyne Qorqor oo saxiixay miisaaniyadda 2022 kulan looga hadlayay dhismaha xarunta wasaaradda dhalinyarada oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan inta uu socdo barnaamijka ee u diyaar garoowa barnaamijka inta ka faahfaahsan. markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan warbaahinta City kuna soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa lagu soo bandhigay dalagyo kala duwan kuwaasi oo laga beeray guud ahaanba deegaanada maamulkaasi Hiiraan sida warbixintaani inuu ku faahfaahin doono wariyaheena Cumar Guux. bandhigan ayaa ahaa mid ay qabteen beeraleyda gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi. midowga iskaashatada beeraleyda degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ka kooban 14 xubnood ayaana soo bandhigista dalagyadan kala duwan oo waliba muhiimka ah ku soo bandhigay isla markaana qayb weyn ka qaatay. waxaana goobjoog ka ahaa agaasimayaal ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hiirshabelle, maamulka degmada Beledweyne, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada. gudoomiyaha midowga iskaashatada beeraleyda iyo xogeeyaha midowga ayaa sheegay in ka hor soo bandhigista dalagyadan ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan oo aad u fara badan. waxyaabaha aan ka hadlaynay maantay oo wasaaradii beeraha Hiirshabelle aan kala hadalnay ama aan kala hadlayno fariinta aan u dirayno WFP iyo FAO iyo hay'adaha kale oo beeraha ku shaqo leh waxa weeye in wax laga qabto biibaxada soo noqnoqotay ayaxa insha Allah ta'ala annaguna waxaan diyaar u nahay inaan wax qabsano aan dalkeena horumarino aan deegaankeena tabcano aan ku tiirsanaasha ka baxno ayaan diyaar u nahay oo iskaashatooyinka Beledweyne. sidaas la adligeed waxaan ka soo gudubnay caqabado aad u badan labada xilli oo beeraha la tabco in ay biyo baxan ugu dhufato xilliyadii biyo baxadaas biyaha ay bixisay aan ka faa'iideysan lahayn inagu yimaadaan wax la yiraahdo loss water oo biyihii uu dhumo oo dhanaan iyo kulayl tiro badan oo ka dhasho. intaas annaga u dulqaadanayno la qaadaa dhacayna qaarkeen isticmaalayna ceelal keena kamid ah iskaashatada haddii sanadkaasi ay khasaare taabato iskaashatooyinka kaleento ay ka faa'iidayeen. Cumar Guux, warbaahinta City. miisaaniyadda 2022 ee dowlad goboleedka Galmudug oo ay shalay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayuu maanta saxiixay madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. sida warbixintaani inoogu faahfaahin doonto wariyaheena Sagal Siman Xasan Maxamed. madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa saxiixay miisaaniyadda 2022 kaasi oo shalay ay ansixiyeen baarlamaanka maamulka Galmudug. madaxweyne Qorqor ayaa laba gole ee maamulkaasi ku booriyay shaqada ay hayaan shacabka inay sii xoojiyaan waxaana dhinaca kale uu bogaadiyay xildhibaanada Galmudug sida xilkasnimada leh ee ay u meelmariyeen miisaaniyadda 2022 ee ay ku shaqeyn doonaan. dhinaca kale waxa uu xukuumadda faray inay xooga saarto kororka miisaaniyadda kordhinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada Galmudug. Farxaan Cali Maxamuud, wasiirka wasaaradda maaliyadda Galmudug, ayaa warbaahinta u faahfaahiyay taasoo ka koobnayd 27 milyan iyo 197 kun ama 27 milyan point 2 dakhliga gudaha uu noqonayo 41 boqolkiiba 59 maartay ka imaanayso dakhliga caalamiga ah ama deeqaha ama maartay waxaan la transfer from maartay dowladda dhexe dakhligeena iyo kharashaadka isu miisaaman ayuu ahaa miisaaniyad ahaan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in aynu ku guuleysano sar u qaadida dakhliga gudaha
taas aan dadaalo badan muddo hal sano hadda aan kasoo waday korna usii socotaa bisha kasii dambeysa sidoo kale waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala haddii doorashooyinkan iyo ummadda Soomaaliyeed madaxeeda ujeeda isku balmaraan doorashooyinka noo qabsamaan ay dib u soo maartay bilowdaan deeqihii dibadda iyo kuwii dhexe ee dowladda dhexe maartay ay xiriir kala dhaxeeyay iyo heshiis kala dhaxeeyay dowladda dhexe Soomaaliya taasoo iyaduna aad iyo aad wax u kabaysa kabka miisaaniyadda wax la yiraahdo marka guud ahaan waxay ahayd usbuuc wasaaradda maaliyaddu ay ku guuleysatay inay hore u sii qaado nidaamkeedii dib u habeynta maaliyadda galmudug Sagal Siman Xasan Maxamed warbaahinta City wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Muqdisho caasimadda dalka iyadoo halkaasi ay kaga qayb gali doonaan shirka la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadli doono arrimo dhowr ah warbixin umuurtaasi ku saabsan mar kale hayno ambaqaad Cumar Guux Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayay oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho safarka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa ku qotoma shir uu isugu yeeray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kulankaas oo lagu qaban doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee ku sugan gobolka Banaadir intaasi kadib kulamo gooni ah ayuu garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kula qaatay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo uu kala hadlayay halka ay marayaan dadaaladii dowlad goboleedyada dalka maamulka Koonfur Galbeedna uu qayb ka ahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qayb ka ah guddiga wada tashiga qaran kaasi oo dhawaan uu ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo iyaga shirkooda uu ku soo gabagaboway magaalada Muqdisho heshiisna looga gaaray arrimihii muranka ahaa ee ka taagnaa doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan kulankan ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa looga doodi doonaa waxyaabihii ka qabsoomay hirgelinta ama heshiiskii ahaa in doorasho dalka ay uga dhacdo muddo 60 cisho ah hase yeeshee waxa ay u muuqataa in hal qodob oo kaliya uu ka fulay kaasi oo ah in la xaliyay qaar ka mid ah guddigii doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee lagu muransanaa kulankan ayaana la filayaa madaxda kale ee dowlad goboleedyada dalka oo iyagu qaarkood ku sugan maamul goboleedyadooda ayaa la filayaa in ay gaaraan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kulankanna uu ka furmo isla Muqdisho maalmaha soo aadan Cumar Guux warbaahinta City mas'uuliyiin ka kala socota wasaaradda howlaha guud iyo dhalinyarada ee ciyaaraha ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho caasimadda dalka kulanka ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah sida warbixintaani inoogu faahfaahin doonto wariyahana Sagal Siman Xasan Maxamed wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa wasiirka howlaha guud ku wareejiyay nashqada dhismaha xarunta wasaaradda ciyaaraha oo dhawaan ay soo saareen injineerada dhisaya wasiir Xamse ayaa uga mahadceliyay wasiirka howlaha guud sida degdeg ah oo ay u doonayso in xarunta loo hirgeliyo dhulkaas aad cabirteen dhulka wasaaradda leedahay absolutely waa ka weyn insha Allah shaqeynayna aniga kulli maalmahan waxaan ku mashquulsaneen kontaakyaal badan aan sameynay gabadhan waxaan yiraahdaa ama technical advisor dad ayaa diyaar noo lahaa martiin waxna imaanaan of course markasna waa nin baanaan doonaa inaan imaano iyo fikrada waxaan oo hanti dowladeed loo xalay dhisaayo oo inay naftiina qayb weyn ka yihiin oo maasintiin kulli shaqada wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddiisu shaqadeedu tahay inay dhisto xarumaha dawladda ee bulshada Soomaaliyeed loogu shaqeynayo dhalinyarada iyo sportiska
naqshadii wasaaraddaas loo dhisi lahaa dhammaan maadaama ay naga soo codsadeen inaan u sameyno naqshad cusub xaruntii wasaaradda oo ay hadda si kumeel gaara u degan yihiin oo rabana in naqshad qurux badan ay u samaystaan waxaa ilaahay mahadiisa maanta wasiirka noo marti ahaa waxaan ku wareejinay naqshadii oo dhammaystiran afar dabaq sidoo kale waxay ka kooban tahay afartaas dabaq 16 xafiis 4 hool 2 masaajid iyo baakinkii iyo qolalkii serviceka ahaa sidoo kale labadaas masaajid waa masaajidna haweenka masaajidna waa ragga naqshad aad u qurux badan waxay leedahay wiishkii sidoo kale jaranjaro haddii wiishka oo shaqayn waayaan cilad ku soo baxda fiyujarka waa meel dhammaystiran albaabadii safetiga iyo dhammaan marka waa wasaaradda howlaha guud ayadoo gudanaysa waajibkii ka saarnaa shaqadaydiina ay qayb ka mid ay tahay waxaan injineerada unitkeena injineerada waa kaga mahad celinayaa naqshada quruxda badan cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho sagal siman xasan maxamed warbaahinta city warshada sifeysa biyaha badda una bedesha biyo macaan ayaa laga hirgeliyay degmada xaafuun ee gobolka bari sida warbixintaani inoogu faahfaahin doono waa wariyahana Cumar Guux maamulka Puntland ayaa warshad biyaha badda u bedesha kuwa macaan ka hirgeliyay degmada xaafuun ee gobolka bari halkaasi oo ay ku sugan yihiin wafdi wasiirra oo ka socda dowlad goboleedkaasi gudoomiyaha gobolka bari ayaa sheegay in dadaal dheer kadib lagu guuleystay sidii warshadan looga hirgelin lahaa qaybo ka mid ah gobolka bari gaar ahaan degmada xaafuun loona dhisi lahaa degmada xaafuun inay yeelato warshado waaweyn oo biyaha sifeeya gaar ahaan kuwa badda u bedela biyaha macaan wasiirtaarna waa u jeedaano awal badda waa quusi jiray kalluun buu kala soo bixi jiray haddana biyihii macaanaa uu kala soo baxay marka wasaaradda heer buu gaarsiiyey wasiir waa aad baa u mahadsan tahay adiga madaxda kale wasaaradda oo maxamed cabdiqaadir maareeyaha runtii la'aantiis uu ka mid yahay iyo wasiir ku-xigeenada iyo dhammaantood shaqo fiican baad qabateen insha allah waxaan rajaynaynaa anigu waxaan ahay dadka meeshan dhoodi bay ku soo dhammaata ma ogtahay waa dhulka biyaha adag leh baa dhoodi la yiraahdaa dhinaca kalena mas'uuliyiintan ayaa xariga ka jiray cusbitaal fulinaya qaliinada degdega ah ee lagu sameeyo degmada xaafuun ee gobolka bari dhalinyarada oo Soomaalida oo seef Soomaaliya iyo Puntland shaqada adag ee dadkooda u hayaan iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo reer Puntland iyo gobolka bari waa shaqo muuqata maantay shaqada halka laga qaban doono oo degmooyin badan la furi doono iyaduna hadda shaqo muuqata way waad ogtiin dhibaatada hooyooyin ku qabeen gaari ambalaas la soo saaray wadada aragteen aan soo maray maalin dhaweyd gabar baa wax laga soo qaaday degmada Balididin gaariga ambalaasta oo qandara leedahay baa loo dalbay sidoo waa la socday qolo kaleeto xanuunsan marnaa gaariga dareewalkii gaarigan la hadlay markaasuu kala bayr baan gabar uur sidaan wadaayo kala bayr baa gaariga iga xumaaday 3 saacadood buu kala bayr fadhiyay intii gaari kale la raadinay Cumar Guux warbaahinta City wali waxaad la socotaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya stuudiyaha dhexe ee magaalada Jowhar uu ku leeyahay warbaahinta City qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa magaalada Dhuusmare ku booqday ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isagoona kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan guud ahaanba amniga deegaanada maamulkaasi Galmudug nafta hornimada diyaar garowga habeen iyo maalin ad qoraxda iyo qabowga u joogtaan waa waajibaadka u daarateen waa waajibaadka dalka ka saarnaa difaaciina dadkiina dalkiina iyo diintiina si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa ciidamada operationnada goorida afuliya sida gaarka u howlgala u diyaarsan waxaan leeyahay hawshiina halka ka sii wada hore u wada inta inaguna si buuxdaan idin garab taaganna adinkoo waajibaadkiina horay u gutay amniga soo shaqeeyey shaqaynaya maantay mas-uuliyaddii hore mid ka ballaaran ayaa idin sii saaran
tii hore la dagaalanka cadowga iyo ka shaqaynta amniga maanta waxaa dheeri ah oo waajibaad kale cusub ah inuu dalkeennu doorasho gelayo doorasho loo diyaar garoobayo doorashaduna ay leedahay mas-uuliyad iyo diyaar garow dheeraada guud ahaan ciidanka qalabka sida waxaan leeyahay diyaar garowgiinna difaaciinna heegankiinna iyo howlgalladiinna dardar geliya gaar ahaan ciidanka loo diyaariyey ama loogu tala galay inay howlaha gaarka ah ee muhiimadda goonidaa leh ay fuliyaan ama ay diyaarka u ah iyaga iyo taliskoodaba waa bogaadinaynaa waxaan idin leenahay guulaysta hagaag kaasina wuxuu ahaa madaxweyne qorqoor oo booqday ciidamada xoogga dalka Soomaaliya guud ahaanba intaasi waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya stuudiga dhexe ee magaalada Jowhar uu ku leeyahay warbaahinta City intuu socdo barnaamijka caawa waxaa idin socodsiinayay waa anigoo ah Saare Cabdi Xuseen Sahar Wadani dhanka kaamirada waa Mahad Joker soo saaridda waa Cumar Guux tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sida ay nabadgelyo